الله تعالى وبركاته halkani waa Garaad TV wararkaan idin haynana waxa ugu waaweyn dawladda Djibouti oo qaaday talaabooyin ay ku hor istaagayso saldhigga military ee Imaaraadka iyo Israa'iil ay ka dhisayaan magaalada Berbera wakiilada beesha caalamka oo fariin kama dambaysa oo la xiriidha xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya u gudbiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne Firdhiyo oo shaaca ka qaaday inuu socdo qorshe lagu burburinayo waqooyi bari si adagna uga hadlay xildhibaanadii ka goostay maamulkiisa mucaaridka Soomaaliya oo iska dhaliyay gool siyaasadeed oo taariikhi ah iskuna khilaafay dhexdooda warqadii ay u direen wadamada ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya Somaliland oo xabsiga ku gurtay dhalinyaro qaatay calanka Puntland iyo xukuumadda Ciro oo qaadatay go'aan carjuuq dheh ku salaysan qodobadaas oo faahfaahsanayaan idin soo gudbinaynaa haddii Allah awoodda leh raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal waxaanse ku xasuusinayaa haddii aad joogtid xilliga salaada jamhuuriyadda Djibouti ayaa wajahaysa walaac xooggan oo ka dhashay dhaqdhaqaaqyada Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil ay ka wadaan magaalada dekadda leh ee Berbera halkaasoo laga dhisay saldhig ciidan oo la aaminsan yahay in gobolka uu ku soo kordhin karo khataro dhinaca amniga ah sida ay daabacday qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee dalka Djibouti lagana soo xigtay qobaro u dhoon daloosho xaaladda gobolka dawladda Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si rasmi ah u heshay xogta saldhig ay dardar gelinaysa dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta kaasoo ay shuraaka kula tahay Israa'iil lagana dhisaya garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera kaasoo loo diyaarinaya mustaqbalka inay si wada jira u isticmaalaan Imaaraadka Carabta Israa'iil iyo Mareykanka dhismaha saldhiggani military oo in muddo ah ay soo waday dawladda isku tagga Imaaraadka Carabta ayaa dhawaan si kadis ah loogu baraarugay kadib markii halkaasi laga soo bandhigay sawirro uu qaaday dayax gacmeedka oo muujinaya saldhig ballaaran oo dhinaca militariga kaasoo iskugu jira baqaaro kaydka hubka iyo shidaalka hangara loo diyaariyay in lagu xareeyo diyaaradaha aan duuliyuhu saarnayn iyo bara ay ka duulaan diyaaradaha dagaalka taasoo mar quraha soo jeedisay indhaha daneeyaasha gobolka ee dhinaca amniga Djibouti oo ku dhow magaalada laga dhisaya saldhiggani ee Berbera sidoo kalena hormuud u ah amniga gobolka Geeska Afrika iyo ilaalinta marinada istiraatiijiga ah ee biyaha badda cas sidoo kalena martigelisaha saldhigyada quwadaha waaweyn ee reer galbeedku ay ku leeyihiin gobolka Geeska Afrika ayaana u aragta dhismaha saldhiggani military ee Berbera mid meesha ka saari kara saameynteedii gobolka sidoo kalena carqaladayn kara hawlihii amni ee ay ka waday marinada muhiimka ah ee biyaha badda cas sida gacanka Baabul Mandab sida ay daabacday warbaahinta maxalliga ah ee dalka Djibouti qaar ka mid ah xukuumadda Ismaaciil Cumar Geelle ayaana haatan qaaday talaabooyin ay kaga hortagayso in saldhiggani military ee magaalada Berbera uu si rasmi ah ugu adeego dhinacyada doonaya inay mustaqbalka isticmaalaan oo ay Israa'iil ugu horeyso dawladda Ismaaciil Cumar Geelle ayaana fariin la xiriidha walaaceeda saldhiggani Berbera waxay la wadaagtay talisyada quwadaha reer galbeedku ay ku leeyihiin gudaha dalka Djibouti kuwaasoo kala ah Faransiiska Mareykanka iyo Shiinaha iyadoo ku cadaadinaysa in laga hortago dhismaha saldhiggani iyo joogitaan ciidan oo magaaladaasi ay ku yeelato Israa'iil si gaar ah waxaa la sheegay in dawladda Djibouti ka hortagga saldhiggani ay la kaashanayso wadamada Faransiiska iyo Shiinaha oo la sheegay in aragti ahaan qudhoodu ay ka soo horjeedaan saamaynta Israa'iil ay ku yeelanaysa gobolka Geeska Afrika iyo dekadaha kulaalaha marinka ganacsiga ee Baabul Mandab halkaasoo la sheegay inay ka imaan karto khataro dhinaca amniga ah oo ay wajahaan biyaha badda cas iyo gobolka Geeska Afrika Shiinaha oo gudaha Djibouti ku leh saldhig weyn oo military ayaa la sheegay in uu si adag kaga soo horjeedo dhaqdhaqaaqyada ay Imaaraadka iyo Israa'iil ka wadaan magaalada Berbera
maadaama oo shiinuhu saaxiib dhow la yahay dowladda federaalka ee soomaaliya si weyna uu kaga soo horjeedo is-aqoonsigii ay israa'iil iyo somalilan sameeyeen dabayaaqada sannadkii hore ee maadaama oo jamhuuriyadda shuuciga ee shiinuhu ay colaad weyn ugu qaaday hargeysa xiriirkii ay la yeelatay jasiiradda taiwan oo ah gobol doonaya inuu ka go'o dalka shiinaha dowladda ismaaciil cumar geelle ayaana hadda cadaadis ku saaraysa waddamada faransiiska maraykanka iyo shiinaha in laga takhalluso saldhigga laga dhisaya magaalada berbera iyadoo u muujinaysa xiisadaha amni ee uu ka dhalin kara gobolka geeska afrika iyo saamaynta israa'iil ay doonaysa inay ku yeelato marinbiyoodka baabulmandab iyo biyaha badda cas qobarada dhinaca amniga ee la socda xaaladda gobolka ayaana imika waxay sheegayaan in jabuuti ay awood buuxda u leedahay haddii ay kordhiso cadaadiskeeda in ay ku qasabto waddamada ay martigeliso saldhigyadooda inay ka soo horjeestaan dhaqdhaqaaqa dubaay iyo talaabiif ee magaalada hargeysa taasoo si buuxda meesha uga saari kadha riyadoodii la xidhiidhay inay mustaqbalka isticmaalaan saldhig milatari oo ku yaala magaalada berbera hagaag saaxiibayaal shabakadda garaa tiifi ayaa toos inooga daawanaysaan waxaa sii xoogaystay walaaca ay dalalka beesha caalamka ee daneeya arrimaha soomaaliya ka qabaan ismarinwaaga siyaasadeed ee muddada dheer ka taagan dalka iyadoo wakiilada caalamiga ahi haatanna fariin kama dambaysa oo digniina ay gaarsiiyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dhinacyada mucaaridka dowladda xasan sheekh maxamuud ayaa loo gudbiyey fariin ku saabsan muhiimadda ay leedahay in la gaaro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay ka hor dhammaadka bisha agoosto sida ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed iyo xubno ku dhow madaxtooyada soomaaliya fariinta ayaa markii hore la gaarsiiyey mas-uul sare oo ka tirsan madaxtooyada qaranka ka hor inta aan si rasmiya loogu gudbin madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilo wareedyo xogogaal ah waxay tilmaameen in fariintaasi ay ka timid mid ka mid a dalalka sida dhow uga taageera soomaaliya dhinacyada amniga horumarinta iyo dib u dhiska hay-adaha dowladda wararku waxay sheegeen in fariintu si cad u muujinaysay walaaca sii kordhayaha ee beesha caalamku ay ka qabto taageerada soomaaliya kuwaasoo aaminsan in khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday uu wiiqi karo horumarka laga sameeyey dowladdhiska dib u habaynta hay-adaha dowladda iyo dadaalada lagu xoojinaya xasiloonnida guud ee dalka fariinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haddii madaxda soomaalida ay ku guuldaraystaan inay toddobaadyada soo socda gaaraan heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay dib loo qiimayn karo heerka taageerada caalamiga oo ay ku jiraan maalgelinta mashaariicda horumarinta iskaashiga siyaasadeed iyo barnaamijyada ay taageeraan deeqbixiyaasha caalamiga ah ilo diblomaasiyadeed ayaa sidoo kale sheegay in haddii ismarinwaaga siyaasadeed uu sii socdo dib loo eegi karo heerka xidhiirka diblomaasiyadeed ee ay soomaaliya la leedahay qaar ka mid ah saaxiibada caalamiga ah fariin midani la mid ah waxaa sidoo kale la sheegay in wakiilada beesha caalamku ay la wadaageen siyaasiyiinta golaha mustaqbalka ee mucaaridka oo ah isbahaysiga ugu weyn ee mucaaradeed oo haatan ka soo horjeeda dowladda xasan sheekh maxamuud inkastoo aan si rasmiya loo shaacin tallaabooyinka ay dalbadeen qaadistooda haddana xogaha la helay waxay muujinayaan in beesha caalamku ay si dhow ula socoto xaaladda siyaasadeed ee dalka walaaca ay ka qabtay ismarinwaaguna uu kordhay arrimahani waxay ku soo beegmayaan xilli soomaaliya ay weli ka taagan yihiin muranno la xidhiidha wax kabeddelka dastuurka hanaanka doorashooyinka iyo xidhiirka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada kuwaasoo noqday qodobada ugu waaweyn ee hortaagan in la gaaro is-afgarad siyaasadeed oo ballaaran khilaafaadkaasi ayaa dib u dhigay dadaaladii lagu doonayay in lagu helo heshiis siyaasadeed oo saldhig u noqda geedi u socodka doorashooyinka dhammaystirka dastuurka iyo dib u habaynta hay-adaha dowladda
iyadoo dhinacyada siyaasadda ay weli ku kala aragti duwan yihiin qaabka loo wajahaya arrimahaasi. muddooyinkii dambe saaxiibada caalamiga ah ayaa si isdabajoog ah ugu baaqayay madaxda iyo saamilayda siyaasadda soomaalida inay khilaafaadkooda ku xalliyaan wadahadal iyo tanaasul, iyagoo ku adkaysanaya in heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay uu lama huraan u yahay xasiloonnida dalka, maadaama dowlad dhiska iyo sii socoshada taageerada caalamiga ahi ay ku xirnaan karto. suuragalnimada in dib loo eego taageerada dibadda, la hakiyo gargaarka ama la dhimo maalgelinta haddii aan xal siyaasadeed la helin ayaa saamayn weyn ku yeelan karta dowladnimada Soomaaliya oo inta badan ku tiirsan xilligani taageerada caalamiga ah. madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye ayaa markii ugu horeysay si adag kaga hadlay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee uu wajahay maamulkiisa, sida xildhibaanadii qaarna iska casilay kuwo kalena u goosteen dhinaca Hargeysa, iyo sidoo kale qorshe uu sheegay in uu miisaska wadahadal ka saaran yahay oo lagu burburinayo jiritaanka maamulkiisa. madaxweynaha waqooyi bari Firdhiye ayaa qaabka ugu kulul uga hadlay xildhibaano ka tirsanaa baarlamaanka maamulkiisa oo dhowaan u goostay dhinaca Somalilan, isagoo ku tilmaamay tallaabadooda mid dhaawacaysa kalsoonida shacabka, islamarkaana waxa uu sheegay in ay bannaysay fursad lagu soo xulo xubno uu sheegay in ay si dhaba ugu taagan yihiin qadiyadda waqooyi bari. madaxweynaha waqooyi bari waxa uu tilmaamay in uu bishii Maaj ee sanadkani uu u sheegay guddoonka baarlamanka in xubno ka mid ah xildhibaanada ay qorsheynayaan inay aadaan Hargeysa, balse waxa uu xusay in aan la qaadin tallaabooyin degdega maadaama arrinta xilka qaadistu ay ahayd mid muran badan dhalin karta. waxay qaateen waxa uu ahaa go'aan ceebeed, balse annaga sharaf ayay noo tahay inay naga baxaan dadka aan ku kalsoonayn mabda'a maamulka waqooyi bari. taasi waxay noo oggolaanaysaa inaan boosaskooda ku bedelno dad u taagan danaha iyo qadiyadda waqooyi bari. madaxweyne Firdhiye ayaa sidoo kale dhaliilay xildhibaanada sheegay inay diidan yihiin xukuumadda maamulkiisa ee xilka iska casilay, isagoo sheegay in haddii ay tabasho siyaasadeed qabaan ay ahayd inay ku muujiyaan gudaha hay-adaha ay ka tirsan yihiin halkii ay maamulka uga bixi lahaayeen kuna biiri lahaayeen dhinacyo kale. Firdhiye waxa uu qiray in maamulka weli uu wajahaya caqabado dhinaca horumarinta, isagoo sheegay in mashaariic badan oo horumarineed aysan weli si buuxda u soo gaarin waqooyi bari. si kastaba ha ahaatee waxa uu sheegay in arrintaasi aysan ka dhignayn in maamulku uu yahay mid aan sharciyad lahayn, balse ay qayb ka tahay marxalad ay soo mareen dowlad goboleedyada kale ee Soomaaliya. madaxweynaha waqooyi bari ayaa shaaca ka qaaday in haatan miisaska wadahadalka ee dhinacyo kala duwan ay dusha ka saaran yihiin qorshayaal la doonaya in lagu burburiyo jiritaanka waqooyi bari, iyadoo dad badan ay aaminsan yihiin in waqooyi bari aanay maamul jiro ahayn noqonna karin mustaqbalka, sidaa daraaddeedna lagu kala tago oo ay dadka halkaasi degani ku kala biiraan dhinacyo kale. madaxweynaha waqooyi bari si toosaha farta uguma fiiqin dhinacyada uu sheegay in ay miiska kaga doodayaan burburinta iyo kala dirista maamulka waqooyi bari ee curdinka ah oo dhowaan ay aqoonsatay dowladda federaalka. madaxweynaha waqooyi bari ayaa sidoo kale ku eedeeyay Somalilan inay waddo ololo siyaasadeed iyo mid warbaahineed oo lagu wiiqayo waqooyi bari, isagoo sheegay in dadka ku biiray Somalilan aysan waxba ka bedeli doonin jiritaanka maamulka, wuxuuna uga digay Somalilan inay faragelinta sii wado deegaanada maamulkiisa, isagoo intaa ku daray in wixii amni darro ah ee ka dhaca deegaanadaasi ay mas-uuliyadooda qaadayso Hargeysa. mar uu la hadlayay Hargeysa waxa uu yidhi dadka idiin soo goostay ku buuxsada maxaabiista aad haysaan
muddo 3 sana waxaynu lahayn duulaan cidna kuma nihin laakiin maanta waxaan caddaynaynaa in aynu duulaan ku nahay cid walba oo nugu duulaana waxaana uu sheegay inay diyaar u yihiin 10 labaad ama darsi kale oo ay u dhigaan Somaliland sida uu hadalka u dhigay hadalka ka soo baxay Cabdulqaadir Axmed Cali Firdhiye oo u muuqday inuu aad uga kululaaday dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee maamulkiisa soo wajahay ayaa waxa uu sheegay markii ugu horeysay inay diyaar u yihiin dagaal kale oo ay la galaan Somaliland haddii aanay joojin faragelinada iyo dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah maamulkiisa isagoo sheegay in ay 10 labaad bixin doonaan waa hagaag siyaasiyiinta mucaaridka ku ah dawladda Soomaaliya ayaa dhexdooda isku khilaafay warqadii furnayd ee golaha mustaqbalku ay u direen dalalka ay ciidamadoodu qaybta ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika iyo taageerayaasha caalamiga ah warqadda ayaa waxaa durba si adag uga hor yimid qaar ka mid ah garabyada mucaaridka iyadoo wasiirkii hore ee amniga xildhibaan Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo si adag kaga hor yimid dalabkii ku qornaa warqadda ayaa dalalka ciidamadoodu ay qaybta ka yihiin howlgalka nabad ilaalinta loogu soo jeediyey in loo baahan yahay dhismaha golo kumeel gaara si loo badbaadiyo sharciyadda iyo kalsoonida dadka golaha ayaa sidoo kale dalalka Afrikaanka ah ee ciidamadooda ku taageeray howlgalka nabad ilaalinta ka codsaday inay sii wadaan taageeradooda inta laga helaya xal siyaasadeed oo laga gaaro khilaafaadka ka taagan hanaanka doorashooyinka sidoo kale waxay madaxda dalalka ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya ka codsadeen inay taageeraan dadaal kasta oo horseedaya heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay iyagoo sheegay in heshiiskaasi uu yahay shuruudda ugu muhiimsan ee guusha howlgal kasta oo amni iyo xasilin ah oo ka socda gudaha Soomaaliya wasiirkii hore ee amniga oo ka tirsan midowga haybad qaran ee mucaaridka ayaa sheegay inuu aad ula yaabay in golaha mustaqbalka uu ka soo baxo dalab la xiriira dhismaha golo kumeel gaara isagoo sheegay in arrintaasi ay god ku sii ridaysa dowladnimada waxaan aad ula yaabay qoraal la sheegay inuu ka soo baxay golaha mustaqbalka oo beesha caalamka looga dalbaday in Soomaaliya loo dhisa golo kumeel gaar ah ayuu yiri Islow oo ka mid ah garabka mucaaridka ee haybad qaran waxa uu intaa ku daray haddii qoraalkaasi sax yahay waa wax aad looga xumaado inay maanta jiraan dad mustaqbal ka leh hogaaminta dalka oo doonaya in Soomaaliya dib loogu celiyo kumeel gaarnimo sidoo kale waxa uu lama filaan ku tilmaamay in la soo jeediyo talo ah in hay-ada sharciya oo xilligoodii dhammaaday lagu bedelo golo ka kooban shakhsiyaad aan wax sharciyada lahayn isbahaysiga mucaaradka Soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe dhisayay dood siyaasadeed oo culus oo ku saabsan muddaxileedka dawladda khilaafka doorashada iyo baahida loo qabo heshiis qaran oo lagu gaaro hanaan doorasho oo la isku raacsan yahay haddii ay sugayeen in soo jeedintaasi ay cadaadis saarto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa waxay dhinaca kale dhalisay caro shaki iyo kala qaybsanaan ka dhex abuurantay mucaaridku waxay u haystay qodobo uu si xoogan ugu difaaci karay mowqifkiisa waxaa weli taagan khilaafka ku saabsan muddaxileedka madaxweynaha iyo baarlamanka wax ka beddelka dastuurka guddiga doorashada sharciga doorashada iyo qaabka ay u dhacayaan codbixinada socda si kastaba ha ahaatee mucaaridka ka soo horjeeda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuldaraystay in ay mideeyaan aragtidooda si la mid ah mucaaridkii ka soo horjeeday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaasoo ay isku hal mowqif ku socdeen taasina ay u sahashay in ay ka guulaystaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aanu gudba wararka kale ee xukuumadda Somaliland ayaa amar buuxa oo ay siisay ciidamada booliiska waxaa xabsiga loogu taxaabay dhalinyaro calanka Puntland ku dhex qaatay magaalada Hargeysa kuwaasoo ugu dabaaldegayay xuska 1 Agoosto oo ah sanad guuradii 28aad ee ka soo wareegatay aasaaska Puntland
xogahan helnay ayaa xaqiijinaya in dhallinyarada xabsiga lagu guray dhammaantood ay ka soo jeedaan beesha Subayr Awal oo hadda mucaarid ku ah xukuumadda Ciro waxaana tiradooda naloogu sheegay 6 dhalinyaro halka sidoo kale aan la soo qaban dhalinyaro kale oo ka soo jeeda beesha Garxajis oo iyaguna qaatay calanka Puntland taasoo kacdoona ka dhana xukunka Ciro ka abuuri karta gudaha Somaliland dhalinyaradan ayaa intooda badan ku xiran saldhigga dhexe ee Hargeysa iyadoo aan ilaa hadda wax maxkamada la horgeynin waxaana arintaasi ay u muuqataa mid cadaalad darro ku dhisan tallaabadani ayaa ka dhalatay kadib markii 26kii December 2025 iyo 18 May 2026 ay dhalinyaro badan oo Puntland ah qaateen calanka Somaliland